kusoo dhawaada mid kale oo ka mid ah barnaamijyada aanu u bixinay xusuus reeb ama xasuus reeb oo had iyo jeer aanu kaga sheekayno waxyaabaha ay noola muuqato in taariikh ahaan ay mudan tahay in la duubo ama facada be ee soo koraya iyo kuwa yaryar ee imika joogaan waxa uu soo jooginba wax looga sheego barnaamijkan aanu duubayna wuu ka duwan yahay kuwii hore waxaanu ka hadli doonaa deegaanka ama environmentka waxa loo yaqaano daaqa iyo maareyntiisa iyo nolosha marka loo eego biicadda xagga deegaanka ku saabsan ee arladan gaar ahaan Somaliland iyo guud ahaanba arlada Soomaalidu ay degtay iyo sida ay isugu dhadhow yihiin nolosha xoolaha beeraha iyo dhirta iyo daaq waxaan soo helay nin khabiira oo Soomaaliyeed oo muddo dheer waaya aragnimada u leh oo ka shaqeeyay dalkan muddo hore adduunyadana ilaa 30 wadan oo ka mid ah ka soo shaqeeyay maamulka kaymaha daaqa iyo waxyaabaha hawlahaasi ku lug leh si gaar ah u bartay Dr. Maxamed Maxamuud Mire ayaa marti noogu ah barnaamijkan oo aanu ku soo dhaweynaynaa xusuus reeb in yaraan idinka hormariyo intaanan Dr. Mire isaga soo dhaweyn waxa uu ku dhashay gobolka Togdheer deegaanka Qoryaale dabcan quraanka wuxuu ku bartay meelo kala duwan oo ka mid ah dalka maadaama adeerkii oo isaga soo koriyay oo ahaa nin bilaysa oo kolba meel loo bedelo markii ugu dambeysay dugsiga hoose waxa uu ka bilaabay Mandheera kadibna Burco ayuu ku noqday wuxuu tagay Camuud oo ahaa dugsiga intermediate ama dugsiga dhexe iyo Beer Camuud ayuu secondary ku dhamaystay dabeedna wuxuu galay Lafoole jaamacadii Lafoole oo macallin ayuu noqday laakiin cilmiga sayniska bartay waxa macallin uu ka noqday dugsigii loo oran jiray Tasaaha ee veterinary-ga ama saraakiisha xanaanada xoolaha lagu tababari jiray kabacdina wuxuu madax ka noqday dugsigii ugu horeeyay laga sameeyay wadankii loo oran jiray Soomaaliya gaar ahaan magaalada Burco ee ah macadka tababarka ama maareynta daaqa dhalinyaradi ugu horeysay halka ayuu ka soo saaray kabacdina Arizona jaamacad ku taalo wadankaasi Mareykanka ayaa culum dheeraad loogu diray markii uu ka soo noqdayna waxa uu ka shaqeeyay mashruucii loo oran jiray Kuwait Fund oo arlada Soomaalida wax weyn ka qabtay aniguba intaan garanayo runtii oo ku saabsan xagga maareynta deegaanka iyo daaqa iyo waxyaabaha ku lug leh Oxfam ayuu la taliye u noqday haddana uu ka tagay shaqadii xagga ay carabta sidii caadada dadka u ahaan jirtay 80yada horaanteedii ayuu dhoofay FAO laanta jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ugu qaybsan cunada iyo beeraha ayaa qaadatay oo muddo dhowr iyo 20 sanadood ayuu wuxuu ka soo shaqeeyay in ku dhow 30 sanadood in ku dhow 30 wadan oo FAO ayaa qaadatay oo laanta jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ugu qaybsan xagga beeraha iyo cuntada oo muddo 30 sanadood ku dhow uu ka soo shaqeeyay in ku dhow 30 wadan oo daaqooda iyo noloshooda iyo wax ka soo maamulay Hargeysa ayaan ka helay isagoo aan markaa dhir iyo daaq midna shaqo ku lahayn waliba aan odayna sii ahayn aqligiina iyo cilmigiina haya marka waxay la noqotay inaan wax badan oo og yahay ka duubo Dr. Mire marka ugu horeysa ku soo dhawow barnaamijka Home Cable TV ee xusuus reeb oo taariikhda aanu kaga duubna had iyo jeer cidaanu aqoon ku tuhumno oo aan kugu soo marti qaaday barnaamijka ducaale aad iyo aad baad mahadsantahay waana ku soo dhawahay barnaamijkana waxay la tahay inuu barnaamij aad iyo aad u qiimo badan u yahay waxa weeye waayo barnaamij aniga waxyaabahan ahmiyadda weyn siiyo dee ka hadlaya inkastoo aad tiri iswaa ninkan waa Bagamondo weli dhir iyo daaq waxba kuma laha ilaa intii aan soo retire garoobay wadanka yimi waxaan isku dayay inaan aniga laftaydu wixii aan wadamada ka soo qaban jiray ama wixii hore aan dalka ka qaban jiray bal inaan ogaado sida ay wax yihiin maanta intaana waxaa kula geli Dr. Mire
noloshaadii hore ee yaraantii oo aniga ka soo sheekeeyey maxaad ku dari lahayd ee aan dhaafay aad doonaysaa inaan والله دعاء si fiican baad uga sheekaysto aniga dee askari allah u naxariistay oday askari ah ayaa soo koriyey aniga aabbahay isagoo 3 jir buu dhintay marka allah u naxariistay adeerkay baa kafaalad qaatay marka isaga soo malcaamadii ugu horeysay waxaan ka bilaabay meesha wajaala la yiraahdo ka bacdi gabiile baan tii labaad ka galay halkan xeegada ka soo horjeeday macallin jaamac geed hoostii baan markaana dabeetana berberaan haddana tegay dabeetana ceeri gaabo markii ugu dambeysay mandheeraan markaa iskuulka ka galay marka horta noloshaydu anigoo yar baan soo dhameeyey inta qaybta tan Somaliland aan soo wada arkay anigoo dhalinyaro ah marka runtii dugsiga dhexe waxaan ka galay markii ugu horeysay aan dayaxa marka wax badan baan joogay waxaan term quran joogay dayaxa ka bacdi beer baan isu soo bedelay marka beer baan ka dhameystay dabeetana Camuud secondary schoolkii baan ka galay niman badan oo odayaal oo aan isku class ahayn baa maanta wadanka joogo Musabixi uu kamid yahay cigaalood garanaysa maxamed axmed cigaalood garanaysa uu kamid yihiin niman badan oo Ingiriiska joogo dhalinyaro ayana ay kamid yihiin markaas Camuud baan ka dhameystay waxaanan aad iyo aad ugu faraxsanahay niman aad u jecelahay oo marka principal nooga ahaa Camuud ayaa maantana uu wali diinka ah maxay سليمان أحمد قولد إلهي عمرك هو بركة إن شاء الله تعالى مركا لا فورتك بيولوجي برات ها سوما بيولوجي كيمستري ها ده معلم الضغط دبت أنا معلم النقضي مركي جوه الرئيس وإحنا لقيه مركا وما لين معلمين النقطان مركا ويك شوقي أي الله ونحرستين اللي ورنشري جهير وتقرن إسا ديتشي كان جري وزارة وحبر الشذا يعني اللي ورن jiray xasan wali oo diichi ka ahaan jiray wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa yimi markaasi iyagoo magacayga sito markaasi maxamed miraan doonayna oo abdi hayba Allah naxariistay marka principal ayaa noo ahaa marka madax marka nooga ahaa waxaan doonaynaa macallin iskuulka tasaha ee veterinary lagu baro Muqdisho wax ka bara oo biology-ga iyo waxaan kaasa dhigaa chemistry-ga iyo marka waa la keenay marka iskuulka waxa marka ka madax ahaa Dr. Ali Yusuf oo imika gudoomiye labaad golaha wakiilada Soomaaliland ayaa markaa nooga madax ahaa sanad baan ka shaqeynay sanad markaan joogay ayaa la yiri waxaan doonaynaa iskuul baan doonaynaa in barca laga furo training institute ranger مع توبركا lagu barto daaq iyo xayawaankaas marka nin principal ka noqday iskuulkaas marka iskuulkiiba waan aqbalay runtii iskuulka marka waxa fund gareyn jiray UNDP da iyo FAWDA naway waxa macallimiinta jamciyadda qurumaha ka dhaxaysay ayaa macallimiinta keeni jiray barnaamijka horumarinta iyo tan cuntada iyo beeraha marka معلمين شيء أنا ولا كيني شيء معلمين شيء كيني شيء أنا من مركز الليرة ده سوحة يكون انترميديت كصبح انت كصبح حان انترميديت أيها وزارة قادن شرتي واي بيتناول التبرج شري وحوجه كبعد بقى النجا اللي يردتك كانوا وين نصيف يعني وحلا برا مركز 2 years الله بس أنا ضده أيها نقلين شري أو ولي بقى ضد تخصصي علوم تنداق أي حوله oo nooga ay noo keeneen jamciyadda qurumaha ka dhaxayso macallimiin nooga ahaan jira ana principal baan ka ahaa dhagaxiisii ugu horreeyay iskuulkaasi wuxuu ahaa Soomaaliya iskuulkii ugu horreeyay Soomaaliya laga sameeyo ka daaqa iyo lagu barto daaqa ayuu ahaa marka iminka dhalinyaradii yaa tababarteen marka dhalinyaro fara badan baan u tababaray horta anigu groupkii ugu horreeyay ilaa 25 ahaa waan ka saaray intaan Mareykan noqon intaan Mareykan qaban dhalinyaradii aan meesha ka saaray iminka qaar badan baa waxay ka yihiin professor jaamacadda Australia ay ka mid yihiin Australia ay joogaan inta laga tilmaamay midka ku sii haray xataa trainingkii yaraan dibadaha u bixin waa midka iminka aad arkayso inay leeyihiin aqoontii maamulka daaqa iyo
marka iskuul aad u fiican runtii ayuu ahaa oo maxay ahayd oo ku yaraa wadamada afrikada inteeda badan aad iyo aad ugu yaraa buu ahaa iskuul fiican oo magaranaysaa training dadka laga soo saara ay dad really aqoon ay leeyihiin waxaa jira marka iskuuladayna inamadii ka baxay maraykan baa berigii dambe loo diri jiray waxaanu ka dhigi intaanaan dirin waxaanu uga dhigi jiray mashaariicdaan uga dhigi jiray waxa la yidhaha counterparts inay kala shaqeeyaan nin khabiira baa la keenaya maalan kuwaasaa lagu xidhiidhinaya mashruucii kuwait fundka markaanu ka shaqeyn jiray oo kale nin waloo khabiira oo nagala shaqeeyay mashruucaba waxaanu ku dari jiray inama soomaaliyeed oo la shaqeeya oo fiilka oo counterpart oo fiilka badanaaba waxaad ku barato iskuulka iyo waaqica nolosha waxa yaala waa kala gedisan yihiin marka qofkii isagoo academic backgroundkii leh waa inuu yeeshaa maxay ahayd dhulkii iyo aqoonteediina waa inuu yeeshaa marka nimankaa khubarada ayay counterparts u noqon jireen way yaabi jireen markay maraykan tagaan waxay odhan jireen war dadkanu dee iyagii baa maxay ahayd khubara ah moogti runtii marka waxoogaa yaroo maxay ahayd loo kordhiye mooyaane waxa practicalka oo dhan way hayeen waxay ku soo baran jireen waddanka gudihiisa maxamed maxamuud mire intaanan aqoonta kala gelin iyo waxyaalaha aad ma garanaysaa ka xasuusato shaqadii aad ka soo qabatay xagga daaqa iyo ma garanaysaa howlaha markii aad kusoo wareegtay waxaa jiray waddankan la yidhaha somaliland ingiriis baa ka talin jiray marka xafiis baan garanaya aniguba markaan yaraa DNR la odhan jiray oo had iyo jeer waxaa beeraha iyo xoolaha iyo yani macdanta iyo waxaasoo dhan xafiis maamuli jiray dhirta xataa meel baa jirtay magaalada halkan beerta xorriyadda hargeysa agteeda ku ooli jirtay oo lagu kaydin jiray dhirta iyo ma garanaysaa dhirta la beerayo bahalaheeda marka maxaa aqoonahoo aad ka haysaa oo laga dhaxlay markaad dhinac ka eegto cilmi baadhistii ingiriisku uu ku sameeyey arada somaliland horta berigii ingiriisku joogay waxyaaba fara badan waxyaaba badan baa la darsay oo laga darsay xagga geologyga xagga macdanta haddii la eego geologyga siduu dhulku u samaysan yahay biyaha iyo togaga waxaasoo dhan way geej garan jireen oo way qiyaasi jireen intaa biyaha soo marta waxyaabaha levelka ay gaadhaan roobab ka yimaada waxyaabahaasoo dhan waa la samayn jiray waxna waana la qori jiray way jireen waxaa la samayn jiray oo annaga muhiim aada noogu ahaa weliba markaan iskuulkan daaqa waxaa jiri jiray wax allaale waxa ka baxa dhir waddankeena waxaa lagu ururin jiray waxa la yidhahdo herbarium iyagaana ururiyey ingiriiskaa ururiyey dhirtu waa sida waxay leeyihiin waxa sida lagu odhan adiga ducaalo anaga la yidhaha maxamed maxamuud mira xasan oo kale saasoo kale iyaguna dhirtu qabaa'il beelid iyo abtirsiin iyo meel yaskun iyo meel ilaa la soo gaaro geedka magaciisa marka waxa weeyaan waa dhirtaasoo dhan baa inta la keydin jiray herbarium baa lagu guri jiray magacyadu waxa weeyaan sida meeshan ingiriiska Kew Garden la yidhaahdo Kew Garden horta waa dhirtii adduunyada ka baxaysay oo dhan mid walba calaamadiisa iyo bahaysa waa lagu hayaa iyagaaba reference noqda marka iminka dhirta la ururinayo berigii aanu isku dayna inaanu dugaag laga qoro maxay ahayd waxaa la yidhahdo dhirta waddanka ka baxa oo kale nin khabiiraan u yeedhan oo taxonomist oo yaqaana sida loo kala sanifo dhirta marka geedka la qaado ee sampleska la qaadoba copyba waxaa loo diri jiray Kew Garden because referenceka adduunka oo dhan iyaga haya markaasay geedkii ku ay odhanayaan geedkaasu waa geedka magaciisu waa caynka waa kaas markaasaa waxaanu samayn warqadaha loo sameeyaa la dhexgeliyaa waxaa laga ilaaliyaa inay fungus iyo waxaas ku dhashaan isagoo qalalan waa la kaydiyaa si fiican baa loo kaydiyaa dabeetana kabadhaa lagu qoro alphabets inta loo sameeyo marka dalkani ma lahaayo ingiriisku ma ka tegay ingiriisku ka tegay nasiib darrada dhacday waxa weeyaan nin la odhan jiray bilaa ahayd dee askari ahaa barasaabuu bro ayuu ka hargeysa marka wuxuu yidhi wax allaale wixii DNR-ta librarygii oli jiray baa wuxuu yidhi wixii maskaxdii isticmaalku ka tegay oo dhan waa in la gubaa markaasaa arrintii markaanu maqalay baa waxaan baabuur mashruuc ayaga Kuwait uu lahaa oo laba isusi baanu soo kaxaysanay waxaanu ka rarnay herbariumkii iyo anoo burca jooga
baanu soo kaxaysanay herbariumka baanu ka rarnay halka kan isagaan ogeyn isagaan ogeyn ha sawiradii aerial photographskii ingiriisku qaadi jiray marka wixii baanu qaadno waxaanu geynay iskuulkii Burco ardayda marka wax lagu bari jiray dhirta maaragtay waa halkan imika ay ku taalo jaamacadda halkan imika jaamacadda tan Burco laga dhigay wayde iskuulku ha original asligiisu ha halkaasaanu geynay oo ku kaydin marka ardayda wax lagu bari jiray nasiib daro imika wixii waxba kama joogaan oo markii ay wadanka ay marka waxaan maleynayaa waa la bililqaystay Soomaa iyagan garanaynin runtii may garanayaan dadka kanu de waxan iyo faa'iidadeeda wuxun bay arkeen oo warqadahan isku laalaabanoo qaar baa laga yaabaa inay dee ku laabteen bas sonkorta iyo timirta iyo wixii lagu duubi jiray ay ku duubaan marka waa wixii waa kabadhadiina dee way gurteen oo waa la bililqaystay marka horta nasiib darradaas way dhacday oo wixii inoo ahaa ma garanaysaa dee iminka haddaad istiraahdo ururi maalan dhirtii oo kale dhir badan oo berigaa jirtayba oo jirta dee dabargoday baa jirta aan laba haynin baa jirta soo aad gartay ma marka oo la garan karayo faa'iidadii lahaayeen iyo waxaan badee waxa loo ururinaya in waa hagaag markii aad Mareykanka ka soo laabatay jaamacadda Arizona dib aad ugu soo noqotay dalka mashruuc baa jiray la oran jiray Kuwait Fund kaasaad ka shaqaysay bal mashruucaasi waxtarkiisa iyo aqoontii la idinka dhaxlay leedahay waad ka qabateen wadanka horta mashruuca waxa dee hadda maanta waxa jooga ninkii annaga mashruuca noogu madaxda ahaa anagu u haysano dee inuu yahay aabihii marka la eego daaqa iyo xamaacinkaas Soomaaliya ninkan u haysano dee inuu aabbaha ilaahay cumriga ha u dheereeyay maxamed muuse cawaale ayaa noogu madaxda baadiya loo bixiyay markii waanu yahay doctor baadiyo dee weligii baadiyo ka shaqayn jiray horta ninkaas nin annaga noogu madaxaa meesha wuxuu ahaa nin dadka kalsooni siiya markaanu dhalinyarada ahayn na dhiirigelin jiray marka aniga wuxuu iga dhigay directorka technicalka waxa laala wixii ah fiilka farsamada ayuu iga dhigay marka waxaanu samayn jiray dhul fara badan oo wadankeena Somaliland ka tirsan ayaa waxaanu ku xidhi jiray taar baanu ku xidhi jiray dhulku wuxuu ahaa dhul kala jaadjaada maalan oo bi'adiisu kala jaad tahay marka waxaanu dooni jiray dhulkaas inay noqdaan dhul ardaydana wax lagu baro cilmi baaristana mustaqbalka wixii lagu sameeyo wixii daaqa iyo dhirta iyo wixii la xiriira bi'adeena marka maalan qarasgo iyo meel la yiraahdo sheekh u dhow oo kale waxaanu ka sameynay wax la yiraahdo soil and water conservation meel lagu baro dhalinyarada sida biyaha iyo ciidda iyo waxaankaas loo ilaaliyo loo xanaaneeyo sida loo sameeyo marka wuxuuna iska samaysmayeen dee cilmiga wuxuu ku dhisan yihiin haddii wixii sida yihiin aanad u qaban survey aanad kantuurka wax walba aanad bahalkan la yidhahdo aanad ku samaynin hadhowto tiibaa kharibaysa wadanka sida iminka dee sameeyaan meel walba ay u bixiyeen xaalufin baa laga Faraanfur bay u bixiyeen iminka dadka reer miyigu ay u bixiyeen waxaanay hadda sameeyaan Faraanfur bay u sameeyeen because wixii sidii ay ahayd cilmiye sideed looga shaqayn jiray dee looma qaban markii mashruucaasi waxaanu keenay company weyn oo la oran jiray Sir William Halcaro oo Ingiriis ah waxa la wixii soil water conservation iyo dams iyo waxa ku shaqeey companygaas aan nooga shaqayn jiray oo khubaradooda keeni jiray dhalinyaro counterparts oo Soomaaliyana way la shaqayn jireen oo ka barta waxa kale marka noocaas ahaa waxa jiray dhul مثلا meel la yiraahdo jaleelo oo caynaba u dhow kale oo yana nooc kale daaqi uu ka baxo waanu xidhnay waxa jirta meel in laas caanood ka shayso oo ma garanaysaa yana aanu xidhnay waxa jirta dooniwaal meel la yiraahdo meesha buska ay kaga soo dhacdo magaalada Burco siiga badan baa ku soo dhici jiray waxa la oran jiray dooniwaal ba meesha la oran jiray reserve baanu ka dhignay meeshaas laba nooc baanu ka sameeyno meelna waanu xidhnoo taar baanu ka xidhnay meelna waxaanu leeyahay absolute reserve wax la yiraahdo waa seere aan la geli karin marka farda lagu ilaalin jiray magaalada buski uu iska taagay cawsku wuxuu ka dheeraaday marka macawska baa ula jeedeen cawska naturalka wax la beeraya maaha inaad burcawn ka ilaalisaan boardka mise xanaano kale oo waxtar leh oo waxa weeyaan haddii laga meesha weyn nabaad guurtay moogtahay boardka magaalada way ka qabanaysaa because boardkii waa health hazard oo caafimaadkii bini'aadamka wax ku yeelaya waa xabuubka duuro dadku asma iyo waxyaabo badan baa laga qaadaa
تكلم maxay hayto de meel hadii hadhowto cawsku ku soo noqdo waxaad u maamuli kartaa in daaq ahaan looga faa'iideysto isla markaana magaalada aan maxay hayto sigada waanay dhacday bus kuma soo kici jireen meeshii doonay loo oran jiray bus ka kici jiray inkastoo markii dambe de markii wax walba iska burbureen dhulkii iska waxa jira Dr. Mirow intii mashruuca ku wadaad ka shaqeynayay halkee baad ugu badnayd aad ka shaqeysay waxyaalaha aad qabateen maxaa ugu waaweynaa horta mashruucu wuxuu afar gobol buu ka tirsanaa wuxuu ka tirsanaa Togdheer Nugaal Sanaag iyo Bari afartaa gobol ayuu markaa mashruucaas ka tirsanaa markaynu inagu qaybteena waqooyi eegno Somaliland marka la eego waxaanu ka shaqeyn jiray waxaanu sameyn jiray wax la yiraahdo monitoring and evaluation waxaanu dooni jiray inuu ogaado dhulku siduu isu bedelayo ayaanu dooni jiray inuu ogaado marka waxaanu sameyn jiray sanad walba waxaanu dhul bahalaa jiray inaan dhulka ku taagnay oo dabeetana inta qaadato tape baad dabeetana eegaysaa meesha wixii sanadkan ka baxay sanadka ku xiga wixii inay isbedeleen marka waa bolodaad baa la dhigaa waa la akhriyaa dhirtaad oranaysa geed hebel iyo geed nooc hebel iyo nooc hebel iyo nooc hebel baa halka ku yaala ya waxa baalkaad meesha ku taagtay bahala yar yar oo masaabiir oo inta leego aan la aran karin kuna waxaanu eegi jiray waxaan yiraahdeen coordinates kan marka maxay sameynayaan kuwaas waxay sameynayaan hadhowta markaad soo noqoto sanadka dambe aad timaado coordinates kooda la sameeyay imika sidan de GPS baa imika la isticmaalay beriga hore de waxaanu isticmaali jiray coordinates kan maababka marka waxa loo leeyahay meesha ku taagtay wuxuu hadhow kamar uu leeyahay muxuu taray waxa ma laha waxa weeyaan meeshan imika GPS ka oo kala soo maadar hadda imika aanu isticmaalo GPS ku de meesha doonaysu ku geynaya مثلا واحد من سأقولي واحد قولي هبل جيب waxaan akhriyaa coordinates ku akhriyaa soo ma garan meeshii buu ku geenayaa distance kii waxbaad garanaysaa marka baalkan waxaanu ko calaamad baanu ka dhigan jiray sanadka dambe markaad soo noqoto meeshii oo musbaarkii yara musbaarka dhulkan ku taagi jiray si aan loo arag sax oo dadku aanay arag because Soomaalidu wax walba waa vandalism soo way fujiyaan markaad soo noqoto saddex dambe saddex misbaar baan ku dhajin jiray oo boqol mitir markaas sidaad ku garanaysaa adigu ma baad sii dhigan jirtay coordinates kana kuu sheegayo map ayaa ku geenaya iyo distance masaafada labadaas su qiyaasaysa dabeetana waxaad eegaysaa wixii ka cag baxay sanadka dambe markaad soo noqoto same plotka iminka mar haddaan dhigo plot kan oo kala aan meesha dhigo waxaan garanayaa inta geeda sanadkii hore ama cawsadada ama dareemo ama dixi ama safaar ama baldhoole ama maajeen ma garanaysa ama hiil ama ma garanaysa jilab wixii meesha ka bixi jiray baad eegaysaa mar waxaad qiyaasaysaa inta xabadood ee meesha ku jirtay sanadkii hore mar waxaad qiyaasaysaa diameterkiisa intee buu duulkii caradkiisa iyo bahalkiisu yahay marka waxaad ogaanaysaa sanadka dambe markaad soo noqoto hadday qaar dhinteen oo ka baxeen ama ay soo korodhay waxaad ogaanaysaa xaaladda ay ku socoto daaqaagu war ma kor buu u socdaa wixii way soo hagaagayaan mise hoos bay u socdaana way soo xumaanayaan marka haddaad ogaatay inay soo xumaanayaan waa inaad de markaa samaysaa nidaam aad ku maamusho wixii si aanay u baabi'in because nolosha waddankeenu waxay ku dhisan tahay xoolaa nool waxaan akhriyay beri dhaweyd maxay ahayd qolada wasaaradda planningku waxay sameeyeen qorshe 5 sanadooda 2012-2016 waxaan ka sabaan akhriyay waxa ku qoran boqolkiiba 60 waxa la yiraahdo gross national product waxa ay waddanku ay soo saaraan boqolkiiba 60 waa xoolaa nool lacagta dibadaha laga keeno waxaynu dhoofino lacagta inaga soo gasha dakhligeedu boqolkiiba 85 wuxuu ku dhisan yahay xoolaa nool soo wax garatay ma inaga marka waxa weeyaan waxaynu ku noolahay laf dhabarka nolosha dadka Soomaaliyeed waxa weeye wax xoolaa nool ayay tahay xoolina maxay ku nool yihiin waxay ku nool yihiin daaqi bay ku nool yihiin bi'adi ma aha dhulkeenu dhul maxay hayto biyo balo oo wax laga beeri karo oo intaad riigag meel walba la geliso aad ka alfa meel walba ka beeri karto ma aha mushkiladda ugu weyn ee haystaan dawlad odagtiina
biyayarida waddankeena because roobabkaa ku yar adduunka marka la eegayo prioritiska ama biyaha sideebaa ahmiyad ay u kala leeyihiin marka horeysa waxaa oranaysa waa inay bini'aadamku cabbaan mar labaadkana waa inay xooluhu cabbaan mar saddexaadkaa beeraha la gelaya prioritiga marka imika loo kala sameeyo biyuhu waa caynkaas marka waxa weeyaan innaga dhulkeennu maaha runta markaynu eegano dhulkeennu waa dhul daaq waa dhul xoolaad marka waxa weeyaan innaga nolosheennu waxay ku nooshay waa xoolaha reer miyiga weeyaan waa xoolaha nool waxaanaynu nahay marka adduunka la eegayana dadka xoolo dhaqatada ah dhowr bay u kala qaybsaneen waa kala jaadjaad biyadaha kala jaadjaadka ee adduunka innaga waa reer guuraa nolosha reer guuraagu maaha wuxuu qofka bini aadamkii jecel yahay inuu guuro oo kolba meel ka tago waxa ku khasba bi'adda uu ku nool yahay sababta waxa weeyaan roobabkii wax caama maaha waxaad arkaysaa iminka sanad walba meel baa abaar ah roobabku aanay ka dihin ama ay ku yar yihiin marka waxa weeyaan waa inuu dadkii ay guuraan guurashadaa la guuraya waxay keeni jirtay inuu dhulku kala nasto oo ma garanaysaa haddaad xasuusato berigii hore intaan baraagahan meel walba laga samaynin waxaa jiri jiray dhulka biyaha leh ee ceelasha leh waa laga guuri jiray marka roob ku da-aan hawdkaa loo guuri jiro oo balliyada iyo markay biyihii waxaas galaan waxaa nasan jiray markaa dhulkii hore maxay ahayd markaasaa la odhan jiray reerkii wuu ceel degay waxay u soo noqon jireen dhulkii oo cawskii iyo wixii la daaqayena ay wada buuxaan oo u yaaliin maxay ahayd biyihiina ay meesha yihiin waxaad xasuustaa markuu geel iyada jiilaal lagu jiro jiilaal ay tahay oo ay xooluhu soo jiilaal ka yimaado jiilaalku waa dhulkii waa qalayl soo maaha ile roob ma jire haddana waxaan garanayaa geela anu aan garanaya noloshayda aan garanaya reer guuraabaan hadda reerkayga geel xoolo dhaqatu ahaa geelle marka intaanu gugu imaan markuu roobabku ay bilaabmayaan hashu markay rintay ay doonayso inay dhasho gelgelimiyaha laga celin jiray maxaa loogu celin jiray baruur daraaddeed way soo kici kari waaye hadday jiibsato haddana dhulkii wuxuu ahaa marka maxaa jiray waxaa jiray reserve ay daaqaan xooluhu marka markay geed sare iyo geed hoose isla daaqaan xoolo way naxaan marka waxa because daaqan ilaahay noo sameeyey qaar wuxuu bixiyaa waxaan la yidhaahdo energyda daaqadan lagu shaqaynayo sida bariiska oo kale markaad adigu buu ku siinaya qaar waxay ku siinayaan waxaa la yidhahdo proteinska iyo vitaminska iyo phosphoruska waa geedka waxa la yidhahdo dhirta tan waaweyn ee ma garanaysaa shrubska aynu nidhahno ama meegaag ha noqdo ama gulaan ha noqdo ama maxay ahayto dhirtaa kale ama hohob ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdo dhirtaa kale way leeyihiin proteins iyo maxay ahayto vitamin A iyo phosphorus iyo waxay leeyihiin laakiin energy-gooda ayaa ku yar cawsku muxuu siiyaa marka energy-gii buu siiyaa marka waxaa dhacaya balance cunto balance diet isu dheelitiran ay xoolii cunayaan midda kale cawsku adigu haddaad maanta istidhaahda hilib cun hilib lagama dhergo ya adaad doonaysa calooshaadu inay waa inaad bariis ku dartaa soo waxaad garatay maaha cawsku wuxuu u yahay bariiska ayuu u yahay xoolaha maanta dhibaatada taallaa waddankeena waxa weeyaan ee ugu daran had iyo jeer waxaynu aragnaa marka bi'addiya waxa laga hadlayo waxaynu ka hadalnaa un dhir la shiday iyo ma garanaysaa iyo dhuxul iyo baynu ka hadalnaa laakiin waxa ugu daran ee maanta waddankeena haystaa waxaa ka tegey wixii la odhan jiray xooluhu daaqi jireen weliba wixii ay dhirtii ay xooluhu jeclaayeen ay daaqi jireen meeshii way ka baxday caws ku arki maysid aad buu u yaryahay waxaan tegey maalin dhaweed aan dhowr 2011 iyo 2012 iyo 2014 intaba waxaan isku dayay meelihaanu berigii hore ka shaqayn jiray aanu eegnay bal dhulkii siduu isu bedelay waxaa jira meesha la yidhaha maalan bancawl ama aroori ama tuuyo waxaa ka soo buuxsamay iminka geed qodxeed dhulkaasi wuxuu ahaan jiray bancawl waxaa loogu bixiyey cawsha ayaa daaqi jirtay oo ku fara badnayd bankan arooriyeed markaad timaado waxaan anu xasuustaa markaan waddan ka tegey goroyada iyo maxay ahayto iyo cawsha
iyo maxay ahayd xooluhu way wada daaqi jireen meeshaas maanta ku arki maysa waayo bii'addii ay ku noolaan lahaayeen ayaa isbedeshay cawskii baa maxaa u sababa way kula tahay doctor waxaa u sababi waxa weeyaan berigii hore waxaa dhulka waa dadku way ilaashan jireen soomaalidu dadka reer guraaga iyagaa dhulka ilaashan jiray midda kale dowladdu markaynu ahayn waxaa la samayn jiray waxa la yidhahdo reserves seasonal meelo kaydahoo meelo kaydoo la xidho waktiga ay roobab ku da-aan si waktiga maaragtay oo dee dhulku u kala nasto yani maalan dhirta tan maalan wuxuu ilaahayna siiyey waa qorax waxaan la yidhahda iminka haddaad maqasho energy daaqadan aynu bini aadam ku shaqeeyo iminka waxaan aniga aan dee markaan hadlayo waxaa iga hadlinaya waxa weeye de waxbaan soo cunay energy baan helay ya energy qura ilaahay sameeyey oo adduunka u sameeyey waa qoraxda wax allaala wixii noola wixii kale ilaahay sameeyey waxay ahayd qoraxda halkaa ka soo baxaysa waxa cunto inooga samayn karo oo inooga dhigi karaa waa dhirta taasaa qabata qoraxda iyo biyaha isku dartaa waxaan la yidhahdo carbon dioxide-ka la neefsadaa la isku darayaa wuxuu ka samaynayaa wax la yidhaahdo cunto oo geedku u samaynaya geedkanu sidaynu inagu u nool nahay ayuu u nool yahay daaqadaasuu u baahan yahay energygaasuu u baahan yahay tii waxaa sameeya caleenta ayaa sameeya xididaduna biyihiibay iyo macdantii iyo wixii bay usoo nuugaan markaasaa markaa cuntadii geedka u samaysanaya markaasuu koraya geedkii ama cawskii uu koraya markaad mar walba daaqo inta sare la jiro continuously la daaqo ma helayo marka dambe wax u sameeya kayd uu geedka dabeetana kusoo noolado dib kusoo baxo ku koro uu daciifaya ma samaynayo abuur kuu daata ha dhowto dabeetana kuu fida ma samaynayo marka waxa weeyaan berigii hore de waxa la samayn jiray waa la kala nasin jiray مثلا tan ceel guuraagaya marna hawd loo guurayo midna maxay ahayd la soo ceel degayo waxay ahayd maamul lagu maamulo dhulka daaqa oo waa kala nasan jiray dhulka kan imika maxay ahayd ceelashu iyo biyaha leh waqtiga roobku ay daayaan ee dadku ay hawdka u guuraan way nasan jireen oo waxana bixi jiray marka xagga laga soo tugana intii ku hadhay baa nasan jirtay dhulku kala nasan jiray marka waxyaabaha ugu daran la sameeyaa takale waxa weeyaan biyaha haddaanad iyo maamulka isku xidhin daaqa biyaha laftoodu way baabiyaan dhulka maalan iminka meel walba barkad baa laga sameeyey tuulo haddaad iminka aragto wax biyo dhulka galaaba way yar yihiin way baraagahan la samaynayaa dhowr wax bay samaynayaan dhulkii wuxuu noqonaya dhul aan laga guurin waana dadku aanay ka guurin marka wixii intaa uu degan yahay biyihiina uu iska haystaa cawskiina dee daaqiina markaa daaqii baa dhammaanaya ka dhammaanaya dhulkii marka laga guuraan waayo ingiriisku berigu waddanka joogay waa laga ilaalin jiray tuulooyinku inay bataan baraagaha lama ogolayn in la sameeyo maaha dadka nolosha loo diidaya laakiin waxaa la arkaya bii'addii haddaan wixii laysu maamulaan laysu dheeli tirin inay de wixii baaba'ayaan doctor maxamed maxamuud bare ma la odhan karaa dhibaatadan aad ka sheekeynayso ee ma garanaysaa cid badanoo horena ay ka sheekaysay inay ugu wacan tahay soomaaligii oo noloshiisa laftiisii isbedel iminka ay samaynayso oo hadduu shalay reer guuraa iyo raacata ahaa maanta ma la odhan karaa reer magaalla maaha raacatana maahe wax dhexe oo aan la garanayn ayay noloshiisii ku xidhan tahay oo qofkii miyi iyo magaalo midna maaha de horta waxbaa ka jira taas waxa weeyaan intuu miyigii soo baabiyey buu magaaladan waxba ku hayn horta mushkiladan markan technology-ga iyo markan waxay hormaraan mashaakilkooda way leeyihiin soo waxaad garatay maaha maanta waad arkaysaado tuulo walba wax satellite TV baa lagu daawadaa nolol aynaanan garanaynin oo dee berigii hore aynaan exposed u ahayn oonan arki jirin bay dee dadkii arkayaan qaxarkii reer guuraanimadii iyo wixii ay u arkayaan dhibaato iyo mashaakil laakiin waxaa kaloo meesha jira bii'addii ay ku noolaayeen lafteedii markii ay noqoto bii'ad maalan meeshii aan xoolihiiba aanay ku noolan karin iminka sidan ay u socoto markaan aan eegay waxaan idhi waxaynu ku noolay inaynu dhoofino xoolo waxaynu ugu badanaana waxa weeyaan waa adhiga weliba idaha waxa la yidhahdo
iyo lo iyo baynu dhoofinaa ida iyo deriya ayaynu dhoofinaa iyo geelana wax baynu ku dhoofinaa waxyaaba ugu badan aynu dhoofinaa wadamadan carabta aynu geynay dee ay tahay life watan dee dadkan muslimiinta waa neef gowracaan waqtigan xajka carafada baxada waa la gowracaa marka neefkii nool baa dee aynu diraa inuu inagu iibinaa sidaanay biyaddeenu maanta ku socoto ya ida iyo lo-tuna kama dhoofin karno wadanka waayo waxa weeyaan xoolaha kanu qaarba waxbay daaqaan waxaan la yidhahdo iminka la yidhahdo lo-da iyo maxay hayto iduhu cawskay daaqaan waahi maalinta maanta uu cawsku ka dhammaado ya la waayo waxaad ka dhoofin kartaa meeshii ma ay jiraysaa soo waxaad garatay ma waxaa kaloo jira iminka abaaraynu ka hadlaynaa maalan abaaru horta waxay ahaayeen wax ka bii'adda ku jiro oo dee weligoodba jiray waanay jirayaan dabeecadday ka mid yihiin abaaruhu marmarka qaarkood aan 2 sanood baan roob la helin oo dee waynu garanaynaa dabadheer iyo abaaraha caynkaas inay waddanka soo mareen haddana nabaadku dhulka ma ka dabargo'i jirin soo waxaad garatay maaha maanta haddii in yar roobku ay soo dahaan wax allaala wax kayd oo xoolahaas ay ku noolaadaan oo u yaala ma jiraan dhulkii ay daaqi lahaayeen ay waxaas ku noolaan jireen dee waxaanan jirin ma jirto iminka waxaan anigu dee isleeyahay waxaynaan lahayn wax la yidhahdo land use planning wax la yidhahdo ma jiro oo dhulkii ma garanaysaa dhulkii sidii loo isticmaali lahaa isticmaalkii dhulka la qorshe ma la odhan karaa dr maxamed xamuud mirow dhulkaba cidima laha imika oo markaad dhinac ka eegto masalan waxaan garanayaa waagii dee ingiriiskii intii ka dambeysay dhul daaqeen iyo dhul beereed baa xaggan galbeedka jiri jiray oo dadku xoolana way lahaayeen beerana way lahaayeen barigu dee may lahayn dhul beer ah oo noocaas oo kale ah oo adaa ka sheekeyn doona waxaan u malaynayaa inaanay ciiddoodu ku fiicnayn in hadhuur iyo laga beero haddii alla ku rueeyey waxyaalaha caynkaas meel mitirka la yidhaha baa jiri jirtay oo la odhan jiray ingiriiskii baa ka tego wuxuu wixii xaggaa ka xiga yaan markaa xooluhu halkaasay ku noolaayeen markay jiilaalkii tahayna hoos bay iman jireen oo qaranka iyo waxaan beeraha ka hadha ayay cuni jireen wax lala yaabo aan arkay waxaa ka mid ah dhulkii lama kala laha imika nin baa wuxuu iska oodanayaa 2 kilomitir mid kalaa wuxuu goynayaa dhartii nafta lahayd iyo wixii magaranaysaa joogay oo kale dee berigii hore dowlada magaranaysaa qoladii askartana maal waa laga baqan jiray ingiriiskiina dee ciidan forestry waxbuu lahaa yaan la odhan waa la baaba'ay 25 sannadood ayay ummaddan somaliland dee imika gooni intay isu taagtay madax banaanido dabcan dowladaheedu si kastaa u itaal yaraadeene ilaa xad dowladnimaa jirtay ma odhan kartaa ixtiraam la-aan baa soo baxday ku saabsan in la dafiro oo aan laba ictiraafin dowlad jirtay ictiraaf raadinna waynu maqalaay oo nin waliba qolo waliyo xaafad waliyo qolo yaroo kayn liiba intay doonto dhulkii ay ula kacday ducaale horta waxaad sheegaysaa dee si khabiirnimabaad wixii uga hadashay moogtahay waana sax weeyaan horta marka u horeysa adduunkaba markaad eegto iminka wadamadan ka shaqeyn jiray North Africa iyo Near East-ka waxaa jira land capability classification wax la yiraahdo oo dhulku si wax waliba waxay ku haboon yihiin ayaa loo isticmaalaa waa la kala xadidaa dhulka forests-ka ay dhirtu ka waaweyn ka baxdo sida Golos Range-keena oo kale aynu inagu lahaan jiray dee daale iyo ma garanaysaa dhulkaas oo kale way leeyihiin wadamo badan way xadidaan oo waxa loo isticmaalaa forest ahaan dhul waxa loo isticmaalaa in wax laga beero xataa dhulka la beerayo ayaa loo kala xadidaa nooca waxa laga beerayo qaar baa laga beeraa dhulkan la yiraahdo waxa la yiraahdo horticultural crops مثلا olive oil iyo ma garanaysaa waxyaabaha laga beero liinta iyo waxyaabaha caynkaas dhul waxa laga beeraa dhulkan maxay la yiraahdo sarreenka iyo heeda iyo marka meeliba meesha ay roobka iyaba la eega iyo marka wala kala xadida dhul waxa loogu talagalaa xool inay noqdaan dhul daaqsin oo looma ogolaado in cagaf la geliyo iminka nasiib darrada ugu weyn aan ku arkay dhulkeena waxa weeye dad baa waxay iska odanayaan dhul ama waxa lagu siinayaa beer dhul beereedna maaha
intaasoo kilomitro square oodanaya dhulka ay ootaana waa dhulka marka daaqsinta la eego dhulkii potentialka ahaa ee dhul wax ka bixi jireen daaqa ugu wanaagsan uu ka baxo ayaa la oodanaya dooxooyinkii oo kale maalan marka dooxooyinkii hadday sidooda kaga tagaan hadday ootaan oo sidooda kaga tagaan waxbay noqon lahayd cagaf baa la gelinaya dhulkii waxa weeyaan geedihiina waa la shiday oo la goynaya dee dhirtii ka baxaysay ee naturalka ahayd ee dabeeciga ahayd baa laga saarayaa meesha haddii iminka roob di'i waayo ilaa roobkana wax ku beeranaa biyo maxay ahayd malihiinina biyo hoose aynu ceelalo intaynu qodano beera ku waraabsanaa ma jirre beeraheenna inta badan waxa weeyaan waa beera roobaad weeyaan marka hadduu roobku di'i waayo maalan sanadka aad cagaf dhulkii gelisay intaasoo daaq oo intaasoo neefoo xoolaha ay ku daaqi lahayn aad gelisay markuu roobku di'i waayo ciiddii oo dhan waxaa qabeel dabeeshaa qaadaysa ciidda aynu kuwa wax ku beeranana waa intaa yaree sentimitre ugu sarreeya 5 centimeterska ugu sarreeya waa inta fertileka ahayd wax laga beeran karaa waa inta hadday taas ka darto dhulkii markaa muxuu noqonayaa dhual daaqna kuugu fiicnayn doogii inaad ka goysay beerna aan kuugu fiicnayn ayuu noqonayaa marka horta nasiib darooyinka caynkaasi way jiraan land grab baa jira nin iska maqan qurbaha jooga baa odhanaya dhul ha lay qabto beereedoo intaasoo uu iska goosanaya berigii hore waxaa jiri jiray dee wax adduunka waxaa jira waxa la yidhaha rule of law lagu kala dambeeyo sax bini aadamku wuxuu ixtiraamaa qaynuun oo lagu kala dambeeya soo waxaad garatay ma haddii aanu jirin markaa qaynuun lagu kala dambeynaya dee wixii foodood bay noqonaysaa nin waliba qorigiisa u qaato waxaa dhacaya markaa waxaa la yidhahdo anu beri dhexdaasaan warqad ka qoro waxaan ku yidhi resource based conflict bay noqonaysaa ya waa la isdilaya haddii waa la isku dilaya midda kale musiibada kale waxa weeyaan dhul bayn waxaa jira maaha dhulka xoolaha laga xidhayo qura waxaa jira ugaadhan aynu leenahay oo dee national wealth oo waa dee waa adduun dhab baa dee aan wax kaleba ku noolayna ugaadhaa ku nool dalxiisiga iyo waxa kan iyo ya marka ugaadha waxay ku nooshahay inay siday waa reer guuraa sida reer guur meel ka tagto oo meel kala qabato markii maalan ay ka weydo waxay cuni lahayd migration routes bay leeyihiin ay maraan oo meel kale ka tagto markaa ku noolaato dhulkii markaad ka xidho oo fence iyo balaayo miran lagu meel ay maraan oo migration routeskooda waa ku wada baktiyana saas ugu dhimanaya marka horta waxa weeyaan innaga dhibaatada ugu badani waxa weeyaan qaan policies marka horeysa inay jirtaa ay ka leedahay dowladdu siyaasad dhulka sidii loo maamulayay loo isticmaalayay qaybta koowaad aynu intaa ku dayno ee barnaamijka xusuus reeb oo aanu ku wareysanayno dr maxamed maxamuud mire oo aanu kaga sheekeynayno bii'adda ama environmentka iyo baldegaankii somaliland iyo guud ahaan baarlada soomaalidu heerka xaalkiisu u marayo